Salaam saaxiibayaal, inaad caafimaad qabtaan ayaan rajeynayaa. Intaa kadib kusoo dhawaada taxanaha dhambaal xalqadiisa afaraad. Qur-aanku waxa uu siyaabo kala duwan u baraarujiyey soo dhawaanshaha ballanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Si baaxad iyo mug leh ayay aayadaha Qur-aanka Kariimka ah u soo bandhigayaan muuqaalada maalinkaas. Hase ahaatee waxaa laga leeyahay ujeedooyin aan sinaba uga qarsoomin qofka danayn gaara siiya dhuuxidda kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo macnaha ku duugan waxyigiisa. Waxa ay aayadahaas cajiibka ah sawirayaan ilbiriqsyada ama kaaga aadanaha. Bal eeg sida uu Qur-aanka u sawirayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu Qur-aankiisa ku leeyahay: ha u malaynin in Ilaahay uu moogan yahay waxa ay samaynayaan dadka daalimiinta ah. Waxa uu la sugayaa maalin indhuhu libiqsanayaan, maalinka oo ay yihiin kuwa degdegaya, indhahooduna aanay libiqsanayn, qulubtooduna ay madhan tahay. Eeg oo u fiirso sida aynu xabaalaha uga soo toosi doonno maalinka, innaga oo degdegsan, madaxana taagan, si aynu u aragno dhibka jira, indhaheena aanay ilbiriqsanayn, sida aynu wax u eegayno aaweed. Cabsida iyo argagaxa qalbiyadeena buuxiyay awgiina Rabbi subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay inay madhan yihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga oo noo faahfaahinaya waxa uu yidhi: waxaad arki doontaa ummad kasta iyada oo jilbaha u daadatay. Ummad kasta waxaa lagu yeedhi doonaa kitaabkeedii, iyaga oo la odhan doono: maanta waxaa la idinka abaalmarin doonaa wixii aad samayn jirteen. Waa kan kitaabkayagii acmaasha qofka lagu qoro, isaga oo idinku markhaati kacaya si xaq ah. Waxaanu ahayn kuwa diiwaangeliya wixii aad samayn jirteen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado kale oo Qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay: waxaad dadka uga digtaa nebi allow, maalin ay cabsida awgeed qalbiyadu kalxamaha soo gaadhi, iyaga oo murugo iyo warwar ka muuqdo. Daalimiintuna ma haystaan maalinka cid u dhow iyo cid u shafeeco qaada. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwa sameeya camalo wanaagsan misna uu ka aqbalo insha Allah.